ميانو كتيري لا هديانا ديما ميان آيالي لا أدوني أهاين كرا ميانو كتيري لا هديانا ديما قصة أيي كعجيب سنتهي وكحكمة مرتبطة تهي ودنان كمعان تهي قصة ما تانيني وضو وقصو حقيقة وكدعدي مقالة برعو ولبا مهمة إن لقا قاتل تلقية صالح ويفضل تهي مركز أركتو قبردن قروح دبضني إلهي سيئ شعنقية ملكها إنا تراهدو محاي وقورستي نين كوين ستح جبال كل بلامية لكن سوى أركتهاي إناد أغاتو أما آد فهمتو حكمتا يقصد معان أذب دحات كأوه قول كلمانهن كالداء دوينجي يوليبا وحا سببتا النقضي إنا يسعى الفدان أوليبا أي نقدان قويس كمدوبا نلاشا دردن كيغا أوليبا نلاشا وداغا waxa baraha bulshadu laga hadal hayay labadii cishe ugu dambeysayba Sheikh Rusheeye oo ku caana iclaajinta ama daaweynta dadka xanuunsanaya ee xanuunada kala duwan ay hayaan iyo gabar aad u daayad oo qurux badan iyagoo dadku aad ula yaabanaayeen sababta gabadhan quruxda badan leh ay u guursatay Sheikh Rusheeye oo saddex jibaal كوين مركا لو ايغا داديدا وليبا دادكو waxay moodayaan lamaanahan inay iminka isguursadeen balse arrinku sidaa maaha waa ka duwan yahay haddaba haddii sheekadan aad danaynayso oo weliba ay kugu socoto badhagahaaga amaahi oo dhagaysa qisadan sababta u noqotay inay lamaanahani iscalfadaan noloshana ay wadoogaan gabadhan yar ee Ilaahay uu siiyay quruxda shacniga iyo milkaha iyo soo jiidashada 2 sano ka hor nolosheedu waa ay ka duwaneyd nolosha imika ay ku nooshahay iyo sida imika ay tahaba inkastoo markii horeba ay ahayd gabar qurux u dhalatay haddana waxay la'ayd gabadhani xubin jirkeeda kamid ah oo xubnaha ugu muhiimsan bini'aadamka ah oo waliba marka la qiimeynayana xubinta waxa lagu qiimeeyaa magta qofkiisa calaasha 100 halaad baa lagu qiimeeyaa waana araga indhaha ayay la'ayd gabadhan muddo dhowr iyo 10 sano ah ayay araga naafo ka ahayd oo ay ku noolayd nolol mugdi ah rajo la'aan habeen iyo maalin aanay u kala soconayn hooyadeeda iyo aabaheeda adduunka ay ugu jeceshahay aanay wajiyadooda arag cid kale iska daayay balse codkooda kaliya ay maqli jirtay habeen iyo maalin aqalka gudihiisa ayay ku jiri jirtay halka ay fadhiisato ayaa qorraxdu ugu soo bixi jirtay qorraxduna ay ugu dhici jirtay nolosha adduunyadu 99% rajo kamay lahayn ilaa aragii indhaaba may haynin dhakhaatiir iyo daawooyin waa lagala quustay dhakhtar kastoo loo geeyaa waxa uu yiraahdaa nuurka indhaheeda iyo xubka indhaheeda waa caadi haddana daawooyinka loo qoro kuma ladnaato waxa ka khaldanna waa la garan waayay magaalada Burco ee xabulta gobolka Togdheer waxa yimi maalin maalmaha kamid ah shiikhan ku caanka rushaynta ee lagu magacaabo ama kunaanistiisu ay tahayba Sheikh Rusheeye oo hawlo cilaaj ama caafimaad ka waday magaalada Burco gudaheeda kadibna gabadhan indhaala ayaa waalidkeed intay soo kaxeeyeen ilaa si kastoo dhakhaatiir loo geeyo qofka lagama quusanayay ayaa waxa loo keenay Sheikh Rusheeye bal in Ilaahay sabab uga dhigaba kadibna markii loo geeyay ayaa Sheikh Rusheeye markii biyihii uu ku rusheeyay daawooyin dhirahana siiyay ayaa gabadhii arageedii soo noqday
ilaahay shimbir ayuu uga dhigay waanay ku caafimaadayna qoyskii ay ka soo jeeday gabadhu ee muddo dheer soo hayay farxad aawadeed way qarxi gaadheen ilaa waa waalidkeedii oo adduunka ugu jeclaaye gabadhii aragga la'ayd u qaadan waa ayaa iyadana ku dhacay farxad aawadeed iyo rayrayntii iyo weliba rajadeedii adduunyo oo soo noqotay oo weliba ay mustaqbal wanaagsan yeelatay ayaa gabadhii farxaddii waxa ay samaysay waxay Sheekh Rusheeye abaalgud uga dhigtay nolosheedoo idil iyadoo ka dalbatay inuu guursado waalidkeedna arrintaa kuma gacan saydhine farxaddii waa ku waafaqeen go'aankaana waa ay la qaateen abaalla weliba waa ay ku qabeen marka horeysa Ilaah baa haya caafimaadka laakiinse Ilaahay shimbir buu uga dhigay Sheekh Rusheeye isna miyiradoonta ayaaba xanuunaysayo waa uu ogolaaday Ilaahay haysu barakeeye waanu guursanay waanu la aqal galay gabadhii nolosha ayaanu la wadaagay waxaanay dhaleen oo weliba gabadhana dhashay ilmaheedu curad iminka waxay isqabaan lamaanahani muddo cagaynaysa 2 sano ama ku sii dhowba laakiinse dadka qaar ayaa iminka ku hambabaray sawiradan uu akootiga uu ku leeyahay ku baahiyay shiikhu oo waqti uu la qaadanayay xaaskiisa jawi oo ilmo yarna ay u hayso ayaa dadka qaar waxay moodayeen iminka inuu guursaday oo weliba dadkuna waa yar makhluuqiine ay yidhaahdeen gabadhan quruxda badan leh sidee ayay odagan u ogolaatay ka jirahaan ka weyn daahaan ka weyn dhinac walba ka weyn laakiinse xaqiiqadu sidaa waa ay ka duwan tahay gabadhanina maqsuud ayay ku tahay waayo nolosheedii oo baaba'sanayd ayuu dib u soo nooleeyey ilaahay baana sabab uga dhigayna 2 arrimood oo kalena waxaan doonayaa bulshada Soomaaliyeed inaan ka shaafiyo oo weliba had iyo jeer ay soo celceliyaan waa midda koowaade lamaanaha isguursaday haddii gabadhu ninka ay ka weyn tahay waa lagu caayaa haddii ninkuna gabadha ka weyn yahay waa lagu caayaa laakiinse labadaasba waxaa haddii aad dhanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa khayru khalqillaahi haddaad dhankiisa u jalleecdo waxaad ogaanaysaa xaqiiqadu waxay tahayba iyo Soomaalidu waxay aaminsan yihiin inaanay waxba ka jirinba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii ugu horreysay waxay ahayd Khadiija oo 2 jibeer ka weyn ilaa 20 sano ayay ka weynay haddana adduunkayada ayuu ugu jeclaa muu odhan waa gabadhiga weynoo ma jecli adduunkayada ayuu ugu jeclaa waxay ahayd gacantiisii midig bay ahayd waxay ahayd dhib kasta oo marayada la qaybsan jirtay gabadh Ilaahay lacag siiyana way ahayd way ku fangarayn jirtay xitaa markii ay dhimatay ammaanteedii iyo jacaylkeedii muu nusqaamin waanu kamanu daali jirinna waxaanay gaadhay isagoo Caaisha guursaa Caaisha qaba inay gabadh dhimatay inay ka hinaasto way ammaanteeda mar walba hadal hayn jiray mararka qaar ba waxay oran jirtay wax ka khayr badan ba Ilaahay kuugu bedelay markaasuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isna oran jiray iguma bedelin wax ka khayr badan Khadiija sanadkii ugu adkaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo mara waxa uu ahaa sanadkii 2 qof ay ka dhinteen waxaaskiisii Khadiija oo habeen iyo maalin garabkiisa ahayd oo waliba marka dhibaato ama uu murugoodo iskarab taagi jirtay iyo sidoo kale adeerkii oo gaal ahaa oo gaalada kaga beegnaa oo sanadku ka dhintay halkaas sanadkaas ayaa ugu adkaa arrinta labaad aad ka qaadanaysaan ee taa dhigeeda ee ka qaadanaysaan waxay tahay waa gabadha oday ninka weyn ee gabadh ka yar guursada bal u fiirso qisadan kale Khadiija markii ay ka dhimatay radiyallahu anha nabi maxamed yuu guursaday oo ku xigsiiyay Caaisha oo aad uga yar ku xigsiiyay Caaisha oo aad uga yar waliba inay yar ayuu ku xigsiiyay markii uu ku xigsiiyay waxa jirta maalmaha kada iyo wada socda ayay waliba yiraahdo ay tiriyado inay yarade aynu tartanna bay tiri way ku aad uga weynaayo way tartameen yada ayaa ka dheeraysay waayo uu ka weynaa muddo markii ay ka soo wareegtay caruur dhashay ee Caaisha radiyallahu anha ay cuslaatay ayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku yiri
maanta ma tartannaa iyagoo wada socda maadigadeesi baa jira haa waynu tartamaynaa buu yidhi way tartameen ila way cuslaatee maalintii dambana isagaa ka dheereeyey labada sheeko waxaa ka qaadanaysaan gabadhu hadday ninka ka weyn tahayna ceeb maaha oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam labadii dumar ahaa tii horena way ka weynayd tii yaraydna way ka yarayd waa qiso haddii soomaalidu ay u noqdaan ay faa'iido ka helayaan isku soo wada duuduub Sheekh Rusheeye iyo oridiisa adduunka ugu jecel yahayba Allah ha isu barakeeyo lamaanaha kale ee kala da'da weyn lena iyagana Ilaahay ha isu barakeeyo kole lamaanihii waddanka Ingiriiska waa gabadhii ninka ina keer soo kaxaysatay xaasidnimo iyo xumaan baa la kala dhex dhigo waa ku kala tagay bal arrintan ka soo dhiba aragtidaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh Miyanon katirila